dhamaalahiyo dufan baahago noocahago wadabayl xagaa hadbadagu lasho dooqa laba afluhu wadabeecad baas kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaantii baaqiyaarta hawada nagala socotay sida aynu wada ogsoonahay waxaa 3 bilood ee la soo dhaafay si weyn baraha bulshada uga taagnaa dood ka dhalatay silsilad dhaanta ah oo la magac baxday wardoon taasi oo markii ugu horeysay ama dhaantadeedii ugu horeysay uu soo qaaday fanaanka ama dhaanto oo isagu haatan ku sugan qurbaha deegaanka Soomaalida cali dhaantadaasi waxa uu ku xog wareysanayay ama uu xogteeda ku doonayay xaaladda guud ee deegaanka Soomaalida iyo waliba bal hadda isbedelka ka dhacay nooca uu yahay iyo dadku waxa ay kaga nool yihiin iyo qaabka 20 sano ka hor ay ahayd maanta maxaa ka bedelan dhaantadaasi waxa ka jawaabay abwaano kala duwan iyo waliba rag kamid ah suugaanleyda deegaanka Soomaalida nin waliba meel ayuu ku dhuftay waxa haatan khadka telefonka si toos ugu jira abwaan eesh cala oo kamid ah abwaanada deegaanka Soomaalida kuwooda ugu caansan oo waliba laba kamid ah dhaantooyinkii ama labadii dhaante ee cali ka bixiyay dhaantadii hore ee wardoon waa uu ka jawaabay kadibna waxa jawaab iyana uu ka bixiyay waliba muran xoog la dhalisay dhaantadii rundawra abwaan eesh cala wada maqlaysaa baan filayaa waa tahay adoo codka kor igu yar qaadaya bal hadda seed u aragtaa silsiladan dhaantada ah ee rag badan oo dhinaca suugaanta ku xeel dheer ay muuqato inay madaxa iskula galeen mid walibana uu isaga aragtidiisa iyo dareenkiisa ku cabiraya xaaladda deegaanka Soomaalida maadanta walaalkay jaamacow waxa weeye horta dhaantadu way fiican tahay silsiladan la sameeyana aad bay u qiimo badan tahay waxa aniga markii ugu horeysay soo jiitay markii aan arko silsilad dhaanta ah oo dhaqanka Soomaalida ku saabsan markii aan arkay aad iyo aad baan u jeclaystay sababtoo ah awal hore waxa hore loo arki jiray ama aad loo arki jiray silsilado fara badan oo gabayo ku fadhiya iyo fara badan oo hoose ku fadhiya aad baa loo arki jiray balse laakiin markii aan arkay silsilad waxa weeye in isu jawaabo mudan oo dhaqanka Soomaalida ku saabsan oo dhaanta markii aan arkay aad iyo aad baan u jeclaa waxa weeyaan markii aan arkay dhaantada waxa soo bilaabay cali dhaanto dhaantada oo cali dhaanto soo qaaday horeysay waxa la odhan jiray wardoon waxa sameeyay abwaan kamid ah abwaanada deegaanka Soomaalida ku nool magaciisa waxa la yiraahdaa Xasan Xuseen Garaad waxa uu ku nool yahay degmada Cadaadle ee gobolka Shabeelle ayuu ku nool yahay waa abwaan aad u qiimo badan waana abwaanka aan aaminsanahay inuu uu yahay abwaanka ugu sharafta badan ama ugu qiimaha badan abwaaniintii silsilada ka qayb qaatay oo dhan inuu yahay dhaantada wuxuu u dhigay cali dhaanto iyo soo qaaday kadib cali dhaanto inuu soo wareegtay deegaanka maadaama uu deegaanka u dhashay oo deegaanka ka maqan yahay waddanka galbeedka ka maqan yahay inuu soo wareegtay si fiicanna waddanka ugu soo wareegtay wuxuu dhaantada kaga hadlayay waddanka waan ka maqanahay qurbaan jiraa waddan waxa weeye xaaladiisu waxay si badan iska joogaa waddanka ka warrama sidee leeyahay sidee loo nool yahay waxa weeyaan ummaddu ka warrama waxa weeyaan geeli ma idin dhalay gabadhii ma idin da-aan waxa weeye dhulkii ma leedahay beerada iyo cawsha miyaa dishaan macnaha wax dhaqanka Soomaalida oo la yaqaano ku saabsan iyo waddanka ku saabsan iyo waddanka uu joogo ee shisheeyaha ah xaaladahaasi kama jiraane oo si aad iyo aad u badan loo soo wareystay waan qaadanay wareysigii waxa weeyaan aadna waan ugu degay waana jeclaystay dhaantada qaabka ay u dhacaysay baan aad u jeclaystay muddo badan baan aamusnaa oo ilaa iyo 2 bilood iyo bartigeedaan aamusnaa waxaan islahaa abwaaniinta deegaanka ku nool ayaa ka jawaabi doona deegaanka siduu yahayna uga warbixin doona aan la ahay baan jawaabtii sameeyey fanaanka mida fanaaniinta deegaanka waxa weeyaan kuwa ugu codbaxsana oo warkiisa la yidhahdaan u diiday markaan jawaabtii sameynay ayaa isla markiiba haddana waxaa jawaab kala sameeyey abwaan kamid ah abwaaniinta deegaanka abwaan reeyal isaguna ah abwaan aad u qiimo badan abwaaniinta ugu qaaliga ah kamid ah waxa weeyaan isaguna wuxuu u diiday fanaan la yidhahda halkii 2 jawaabood oo deegaanka kasoo wada baxay ayaan u dirnay oo cali dhaanto aan uga jawaabayno jawaabahaas ani aragtidayda waxa weeyaan sidii loogu ra'yiga ay markaa ku diidanayaan wuxuu ahaa ra'yi aad u toosan oo waxa weeyaan loo yahay sidii loogu talagalay baa loo jawaabay sababtoo ah
waad mahadsan tahay wardoon halka inoo guddaa halka ay sartu ka hundawara ee uu sameeyay abwaan cabdishakuur afmagaaxshe cali dhaantana uu soo qaaday bal hadda ka waran dhaantadaas dhaantada hundawara waxa weeyaan markii aan jawaabnay aan cali dhaanta ka wareego jawaabnay waxaan ku nadiir wada jawaab barwaaqo waxa weeyaan wada qofkii ay joogto wada kelmaad ka qiimo badan barwaaqo lagu jiraayo wadankii kaalay inay wada qofkii iska kale baan ugu baaqnay si qurux badan ayaan ugu jawaabnay jawaabta aan sugayay ee kaleeto ayaa waxay ahayd annagu aan islahayn waxa weeyaan dhaqanka waxa ku salaysan hawsha ku soconaysa wadamada kale iyo Soomaalida kale loo gudbiyo irinka hadda wadamada ku jirtaan alxamdulillah weeyaan bal Soomaaliya ka warama laanteedu kaliya bal hawluhu ka warama ayaa la soo orman islaamna waxa weeyaan guddiga Soomaaliyeed namba gaar loo soo waraysan balse laakiin xaaladdu way isbedeshay qaab siyaasadeed ayaa waxa weeyaan loo hadlay maasha siyaasadda oo aan naajid qodobnayna la isku fiicnayn ayaa waxa weeyaan markay loo bedelay markan aragnaytii ayaa dad aad u badan iyo ummadii waxayna kiciyeen waxa la yiraahdo miyiga halka oo kalbada soo celin kara maxaad ku jawaabaysaa kolka sida awgeed xaaladii waxa weeyaan dhaantada oo aan soo qaaday ee u dambeysay Rindawara wax wada xaqiiqo ah oo dhab ah oo aan la diidanin oo deegaanka ku jiray ahayd waxa weeyaan waana qaadanay waanu yeelay oo jawaabhan aan ka bixinay mid ana sameeyay midna waxa sameeyay muxuudii shaahid oo waxa weeyaan codkeediga laxanka dhaantada lahaa oo waxa weeyaan raaciyada sameeyay ana midna reeyada lahaa oo aan warkiisa qaaday jawaabahan ka bixinay muusigii iyo laxankii labadaba aan dhaantada niga geeray muusigii iyo laxanka aan sameeynay muusiga iyo laxanka inaan sameeyno oo aan uga geerno dhowr xaalafooday dhowrka xaalo oo ahaa in waxa weeyaan maaragtay waxaan uu soo weydiiyay wax laga jawaabi kara ayna ahayn min deegaanka Soomaalida joogaana uu ka jawaabi kara ayna ahayn waxa weeyaan maaragtay yaa wax wada jiro oo xaqiiqo ah ha bas hadii aad tiraahdo oo ha una jawaabno oo jawaab ma noqonaysa oo waxa weeyaan nahda ka tagaysa yaa wax haameeya wax kale oo u baahnayn kolkaas daradeed inaan isfargi oo waxa weeyaan annaga iyagina u sheegayna oo iyagii u sheegayna inaan isfargi jiro intaadkeeno kolka muhiimada ugu weyn in dad ku nacay oo dalka qurbaha ugu dooray shalay maanta inuu dareemo dad cusubyaha waxa weeyaan maaragtay inaan noo soo qaadano waxyaabo ma taqaanay abwaan ash cala waad mahadsan tahay waxa cadaysay dhaantadaasi uu soo qaaday cali dhaanto ee Rindawara inay ahayd mid xaqiiqda ku salaysan oo aan mudnayn ama meel laga jawaababa aysan jirin laakiin marka dhinaca kala fiiriso waxa waan ka guuray oo inaan isgijino oo yar maaragtay xoogaa meel kale aan ku dhufano ayaa nala qumanaatay meesha kale ee aad ku dhufateen marka la fiiriyo miyaan la dhihi karin aflagaada cad baad ula bareedeen cali dhaanto iyo weliba abwaankii sameeyay suugaanta marka aan soo qaadano qaar kamid ah erayada oo ay kamid yihiin dufda dhamalihi iyo dufan baa hago waa dabayl xagaa hadba dagulusho dooqa laba afluhu waa dabeecad baas يعني إن أب أفلقاد رب ردان أو أب أرنتي ومارتي أنا ربتين سو هل كما عدانيسو ما أنا نحول ولا أنا حاجة عن كده حاجة هاي ما أنا أفلقادين إذا متشوفه لا أنا لما قلعة واحد يقاني إلا أفلقني ماذا أنا اللي بدي مدو إن أجرب عباس هاي وأنا قرار ما متهذا لي waxaan waa araarta ay maanta ku bilaabatay sida awgeed maadaama araarta hay kala duwan araariyayna waana kulli wax mudnaan soo qaadato macnaha laba aflanimada ama laba gulnimada inay wax badan tahay ayaa meesha ku jirta oo aan kaga hadlaynay laba gulnimadaana kulli wax weeyaan ina aan yarkeynay oo fara badan baa jiray sidii ma tiidin waxa weeyaan meel la soo doortay oo ma soo doorataan meel la dabo waxa weeyaan la soo doortay ma daba gashaan ayaa xilligii uu deegaanka ka sugnaa ee uu deegaanka joogayba meel la soo doortay uma sii dabageli jirnay oo aan dooran jirnay sida awgeed inuu calamaanta macnaha lagu yar jeejeesayo oo deegaanka maadaama isaga wadan qurbaha iska raaxaysanayo si yar jeejeesa uu hadlayo ayaan u qaadanay sida awgeed waxa weeyaan maaragtay jeejeeska in uu waxa weeyaan laga daayo in baan macnaha u hadlaynayo xilligii horeba inaga halkan waxa weeyaan
deegaanka kuma hayno dowladdu waxa weeyaan تقريبا الدربان كيس الله نقرأ عنه معناها تشوفت كفرها بدل ما قاعد يربى لطلعين. عن دربان كنا سيقرأ عنه وقرتي أنا كلي أن شاء الله إثناء إنه وحكاودي وحوي وجودن بي أما تدري له وجودن بيسا يعني دجال أوجيه دبلها تجابا محود عدي الظلم أجاهنا مدنوبته قالوا ده فقرنا يا وصدق رأي أب الميسان علوس إن هدي مدمت أن وحكاودي لها وحقوليها كوب دجال أوجيه وكما إن تعدي الظلم ذل كأنه هري وجري أما الديان كأنه هري وجري مياه تفرسان هاي إن كأذله يعني الذنوب وقلينا واسمه وكما أذله هي الذنوب تقولوا قرينا يا بل هذا صدق ناس مدمت سعودي إن يجود الاستاذ وحنا بقى إن محن كل هذا واحد بدن أي عدالان. هذا ما هذا دورك واحد يرتك من دجال هذا أنا شيء إنه ما رأيته كالعادة نسيبه ما أنت هذا معناه واحد أنا الشخص ولا شيء أنا الشخص لما قلنا معها بس لكن واحد تنتظر بالشوكة أما بدك الدجال كأنت تشوفي شيرين وأي كم أحيانا بدك bulshada tacadiga u geystay bulshada dhibaatada u geystay waxyeelada u geystay ayaa nin waliba maalinta uu deegaanka ka dhamaado oo watan kale u baxo yaa wuxuu soo bilaabayaa dhibaataa ka jirta hawlbaa ka jirta tacadigaa ka jira waxbaa ka jira wada ogyihiin waxaa laftiisuna waxa weeyaan inuu ka mid yahay oo kasoo qayb qaatay tacadiga ayaa dhici karta sidaa awgeed nin kasta oo wadanka deegaanka soomaalida ka baxa oo meel kale u baxa ayaa wuxuu soo bilaabaa in uu tacadi iyo ka sheekeeyo xaalad waxa weeyaan dimuqraadiyad la-aan ah oo wadanka ka jirta inuu ka sheekeeyo waana wax jira iyada oo jirta oo lawada og yahay haddana inuu ka sheekeeyo oo uu markuu wadanka ka baxo uu ka sheekeeyo oo wadanka gudihiisa markuu ku jiro oo uu ka sheekeyn waayo ayaa dhibaato fara badan keensanaysa kolkaa waxaanu leenahay dadkan qurbaha u yaacahaya ee kolka qurbaha tagaan oo tacadiga kasoo hadlaya kolkaa deegaanka dhex joogtaan ka hadla oo tacadiga ka hadla sidaa awgeed tacadiga hajoo sidaan leenahay وقرتي إن أبواناش على أنا أكتبهم هذا علينا إن كان من ذاتك محاكو هذا السودان هذا شعل إن دانتدي وردون مركل جاي ما السودان تي أتقع برتي أوجت واتي قرح لبضناي qaabkii aad u dhigtay suugaantaas miyaa u aaminsan tahay deegaanka hadda inay wax uga jiraan aniga naftirkaygu dadkii maxaan ku idhahdaa to fiirfiiriyey ee ka yara hadlay baan ka mid ahaa oo maaragtay aad u danaynayay aragtida aad qabto ma tii suugaanta aad ku cabirtay baa mise markii aad suugaanta isticmaalaysay waxbaad qurxinaysay xilligii hore waxa weeyaan maaragtay aan tii hore ka jawaabaynay miisaankeedu wuu jiraa badankeedu waxyaabo fara badan oo aanu suugaanta ku qurxinayna wuu jiraa waxaanu suugaanta ku qurxinayna oo kamid ahayd tii aanu lahayn waxa weeyaan waa la duugo qabyaalo degaankii ma laha waxyaabaha aanu ku qurxinayna way kamid ahayd qabyaalo soomaali laguma tagarayo wax ka dhamaanayana ma aha midda laakiin iskiisada lagu jirtayo ninka waxa weeyaan qurbaha ku maqan iyo dadka qurba joogta ah oo calacalina oo wadankii ilaahay ka taxeeyay balaayaa ka jirta hadliyina wadankii waxa weeyaan maadaama oo meesha ay leeyihiin ama lamuqraanka uu ay deegaankii uu tahay u amaano oo wadankii waa dhibaada lagu jiraa dhahabaan ay lahayn wada waxyaabo badan oo ku qurxinayna way jiraan waxyaabo badan oo xaqiiqo ahna way jiraan oo kolkaan leenahay deynta iyo jilaalka waxa weeyaan reerku u daayo oo kuma daafuro oo waxyaabo baan la qabanaa oo waxa weeyaan iyadii dadku waa bilaac kolkaan leenahay jaanada siyaasad dawladeed iyo arrimo dawladeed iyo waxa weeyaan maana ka hadlayna kolka horena xoolo maqato ma ku noolayna geeliyada iyo adagayada baan maanaynay oo geeliyada iyo adagayada baan maalaa kolka sida daraadeed oo adagayada ma ka sheekeynayay ma aanan anaga siyaasad dawladeed xilliga ka hadlaynin kolka sida daraadeed si horena waxbaan ku qurxinaynay tan dambana waxyaabo fara badan oo la soo weydiiyay ayaa waxa weeyaan maaragtay qaaday waxyaabaha oo ay kamid ahayd antadii dawlad ee uu caldaanka soo qaaday qalcad ku jirtay oo ayna dadku u fiirsanin oo dhaantada bartanka u dhaxtaala oo uu caldaanka leeyahay dhul u doonan roob yaa ku daray abaar dad ka dood oo mid kale gasho kaga nacday deyrta iyo jilaalku ma dagad galaan waxa weeyaan deegaanka soomaalidu sidaan aaminsanahay xilligii hore iyo xilligan haatan la joogo isbedelku inta uu ka dhacay wax badan baa isbedelay waxa badan ay isbedelay haddii aan horumar la helin haddii aan wax kale oo faa'iido aan la helin waxa isbedelayda waxay tahay oo keliya in ay dadku si xor ah u nool yihiin waxa weeyaan dadkii ummadda kala maqnayd iyo dadka kala maqnaa inay isu yimaadeen si kale iyo laaba inay isula joogaan nabad in lagula wada joogo habeen qura haddii aad socoto iyo haddii aad ay socoto iyo haddii aad meel kasta tagto in aadan colaad iyo dhibaato ku seexanayn markasta inaad si nabada u ledayso kolkaas sidaa daraadeed inaa la yidhaha dad ka dood oo mid kale dadka kaga dhacday deyrta iyo jilaalku ma dagad galaan macnaha waxyaabaha lagu kalifay in ama waxaan iyo muusiga ay ka guurabay ahayd sidaa awgeed waxaan leenahay
dadka waxa weeyaan dad yaan laga shubin waxa weeyaan yaan ummadda la kala dilin yaan ummadda la isku dirin ninkasta waxa weeyaan dhaantada buuxay ama dhegeysanaysiina waxa ku jira ama waxa ay ka hadlaysa fahmaya sidaasoo daraadeed waxaan kusoo gabagabayn lahaa inaan ummadda la kala dilin waxa weeyaan wixii dabiritaana ama waxa ka shekeynaya oo dhan in waxa weeyaan maaragtay ummadda laga ilaaliyo aad iyo aad baad umahadsan tahay laakiin gabagabada aan jeclahay inaan kaga baxno waa fariintaadii kolley waa dirtay dhaantadan ruundawara ee sida weyn looga dooday ee cali dhaanta soo qaaday abwaan cabdishakuur afmagaxshana uu sameeyey boqolkiiba 90 marka laga yimaado erayada aad sheegtay in yar maaragtay ay yihiin kuwo yani dabtii shidahaya waa kuwo xaqiiqda ku salaysan waad aaminsan tahay baan filayaa oo markii dhinaca siyaasadda laga hadlayo inkasta oo aad sheegtay inaadan jeclayn siyaasadda laakiin haddana markii bulshadeena xaqiiqda loo dhigo dhab wax loogu sheego waa wax jira aad iyo aad waa wax jira oo badankeeda waa wax jira laakiin macnaha xabadda la dhex dhigahayo waxa weeyaan maaragtay la dhex dhigahayo ayaa macnaha in yarkeena laakiin waxooda kale oo dhan waa wax jira oo xaqiiqa ah waxa uu su'aalaha uu soo weydiiyo oo dhan ah abwaanka sameeyey iyo fanaanka qaadaya midkoodna kama jawaabi karo iyada sameeyey qaadaya ayaan ka jawaabi karin haddii jawaab ahaan la yidhaahdo kolkaasoo daraadeed waxayna iyaguba ka jawaabi karin inay dadka soo weydiiyaan macquul ma ahayn oo aad uma fiicnayn baas waxa weeyaan dhaqanka ay dadka horeba ku talaysnayd in ayadan loo sii wada aad u qurux badnayd waa markaan ka taaganahay aad iyo aad ayuu umahadsan yahay abwaan eesh calaa oo ku sugan magaalada jigjiga ee caasimada dowladda deegaanka soomaalida oo aanu ka wareysanaynay silsilada dhaantada ee la magac baxday wardoon oo muddo 3 bilooda soo jiitamaysay abwaan eesh calaa waxa uu ka mid yahay hal abuurka deegaanka soomaalida waa kaaga mahad celinayaa waqtiga iyo fursadda maalahiyo dufan baahago noocahago wadabayil xaga hadbadagu lasho dooqa laba afluhu waa dabeecad baas dariskaba wadanya u doojin jiray kuma dumartigre dallacahad ku rabay oo daraad koobalay dadaysan jira dayaxani rag buu gudcudama la yahay dariskaad sheegaysana meel ka daran tagto waadiga diircaddaha caydhu daba fadhiya dambayso inaad dallad kuhu distee deegaankii loo sinaa ee daryeelka raabay daacalkaad hayn lahayd aada sii daayay shalay yaxlahayda sharaftaliyo dhirka soomaaliyeed hadduu kugu dulyaal hadal deelqaafahiyo weedha kala dilaba mada soo hoodirteen dagal oogihii dibadaha tagaba wuxuu daacaati iyo dulmi uga hadlaa ma dunubtu galuuda ku qarinaya
inay daraynin duruuf kaaga tagay oo dalxiis qurbaha ugu duulay shalay maanta inuu duryaamo dabci fuulayahaa inta lamaadade macdanteena dihin in la daabulo hooyad lagu daldalo waa damiir xumaha xooga kala dibjiray dawayaadiidayo suntayaa dalbad dowka tuuro mid kale dadka yaga la raba dogashii dhaaftayey daaqa waad seegantahe dadkii barakacee dunyadoodii ka yimid ruux dadaal muujiyo uu damqaaday gartaaye midaneeyo ma tahay boqol quudha u diire yaxlahayda sharaftaliyo dhirka Soomaaliyeed hadu kugu dulyaal hadal kala dilaba mada soo dirteen dawladiyo siyaasad hadda diidan tahay wadan ku gooniye deqda eeba iyo hada fiirin nimcada dadku wada hele weera dalaab laho istuqaynayo duqaynayo warkanaad soo duduubin ma istaad raacinba hadba daaculalkuna ma nafkula didaa dabka koonfureed damistiisa dhawo waqtiyaadan isduuray way kasoo doogsaniye aku diigaan ma raba dadka xamaar ku nool dadka Somaliland dariskayga gobta looma duur xule aadan dandan ka dhigin waa duriyaad gobe hadda caayadayn kayma aarlihi doorashada ku yim iyo danabyada Jubbaland daafaca u dadaalaye ha ku dayna xumo yaxlahayda dibadaha tagaba wuxuu daacati iyo dulmi uga hadlaa ma dunubtu garuuda ku qarinaya degdeg jeer loo lagdo dabcad lala hogsaado daruuraha cirkaba wan ma daawade dooda waan ka xidhaye isku qabo dabnaha yaxlahayda